saxnida sideed ku ogaatay nama seegana warkooda ka dhageyso radio Hiiraan Weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku salaysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay ka dhageyso radio Hiiraan Weyn udub dhexaadka warbaahinta doornimo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka doornimo ee warbaahinta Hiiraan Weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxaa kamid ah taliyihii guutada 14 Oktoobar oo lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose madaxtooyada Soomaaliya oo warka soo saartay kulanka madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka soconaya gudaha magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay hoobiyaal ku dhacay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir maamulka gobolka Galgaduud oo warka soo saaray duqeymo ka dhacay degmada Galcad ee gobolkaasi maamulka SAC Qaatumo oo wada u diyaar garowga soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dawladda Mareykanka oo sheegtay inay kordhinayso weerarada ka dhanka kooxda Daesh iyo sidoo kale Al-Shabaab ee ka soconaya qaybo kamid ah gobolada dalka dibaddan waxaad ku maqli doontaan warkeena door Kuuriyada Waqooyi oo kordhinaysa soo saarista hubka ay dalkeeda ay leedahay soo gudbinta warkan waxa idin suura galiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba markale door wanaagsan dhageystayaal waa sabti taariikhdan ay ku beegan tahay 5 bisha afraad sanada 2025 Mustafa Ali Cabdo iyo Sahra Gabriel soo jeedinaya Maxamed Xuseen oo farsameynaya ee ku soo dhawaada warkaad hore u maqasheen oo inta ka faahfaahsan haddii aynu ku bilowno taliyihii guutada 14 Oktoobar ayaa lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaysa Sahra Ibrahim warar kala duwan ayaa ka soo baxaya toogasho maanta loo geystay Allah u naxariistay taliyihii guutada 14aad ee Oktoobar gaashaanle Nuur Maxamed Gaabo oo ku magac dheeraan Nuur Faray oo lagu dilay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ilwareedi xilkas ah ayaa inoo sheegaya in taliyaha xilliga la dilayay uu ku sugnaa deegaan u dhow Afgooye oo ay joogaan ciidamada dawladda waxaana rasaas ku furay nin hubeysan oo ku libisnaa dareeska ciidamada taasi oo keentay in isla markaa uu goobta ku dhinto marxuumka wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ninka geystay falkan isna oo goobta lagu dilay oo waxaana dhacdada ka dhashay hadal hayn xoogan ma cadda sababta uu ninkan hubeysan u dilay taliyaha iyo inuu yahay askari waxaana haatan socdo baaritaano ay wadaan laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka oo ku aadan dilka taliyaha guutada 14aad ee Oktoobar waxaana la filayaa in uu taliska ka soo hadlo Allah u naxariistay taliye Nuur Faray ayaa ahaa sargaal dhalinyaro ah oo firfircoon isla markaana tababaro kala duwan ku soo qaatay dalka dibadiisa gaar ahaan Talyaaniga sidoo kale waa sargaal xoreeyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu haatan ka howlgalayay aaga Afgooye Sabiib iyo Caanoole deegaanadaas oo dhawaan ay weeraro ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab dhanka kale dilka loo geystay taliyaha ayaa waxa ku gadaaman su'aalo la isweydiinayo oo la xiriira sababta ka dambaysa toogashada lagu dilay iyo waxa uu ahaa ninkan dhacdadan ayaa sidoo kale ku soo aaday xilli haatan ay dhaqdhaqaaqyo ka socdaan aaga degmada Afgooye kuwaasi oo la doonayo in looga hortago duulaanka Al-Shabaab ee gobolkaasi oo dhawaan uu la wareegay degmada Awdigle iyo deegaano kale si kastaba kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay
xooga soo saaray gobolada shabeellooyinka oo haatan ay ka socdaan dagaalo, waxaana sidoo kale lagu arkay deegaano ku dhow Muqdisho sida Ceelasha Biyaha, Lafoole iyo Xaawo Cabdi. faahfaahinno dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan hoobiyaal ku dhacay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Shukri Baryare Maxamuud ayaa soo jeedinaysa warkaan. faahfaahinno kala duwan ayaa kasoo baxaya tiro hoobiyaal ah oo lagu garaacay agagaarka dhismaha xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo jigtooda laga maqlay inta badan degmooyinka. ilaa 4 hoobiye ayaa la sheegay inay ku dhaceen xaafad aad ugu dhow xarunta madaxtooyada, gaar ahaan degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale degmada Boondere. wararka ayaa intaas ku daraya in mid ka mid ah madaxfacda uu ku dhacay meel ku dhow tiyaatarka qaranka, waxaana ku dhaawacmay ilaa 1 qof. sidoo kale xaafado ka tirsan Warta Nabadda ayay hoobiyaashu ku soo dhaceen, waxaana la sheegay in ay ku dhaawacmeen 4 qof oo kale, kuwaas oo 2 ka mid ah ay dumar ahaayeen, 2 kalena rag. macallin dugsi ayaa ka mid ahaa dadka ku dhaawacmay hoobiyaha ku dhaca Warta Nabadda, sida ay sheegtay mid ka mid ah goobjoogayaasha oo sheegtay in dhaawacyada dadka ay qaarkood cuslaayeen halka kuwa kalena ay ahaayeen dhaawacyo fudud. annaga waa u dhaweyn, annagu waxay ahaayeen dadka dhaawacmay 4 qof bay ahaayeen, 2 dumar bay ahayd, 2 rag bay ahayd, hiliblu ahaa, ninka kalena macallin dugsi buu ahaa. madfacan ku soo dhacay meesha, madfaca ku soo dhacay hoobiyuhu markuu ku soo dhacay deed waad garanay kartaan qofkii oo mata aan u tooghaynin argagax buu noqonayaa. argagaxaas waa ka dhacay dadkii warta wardhigleyna weeyaane, Warta Nabadda oo wardhigley masaaro 4 qofood baa lagu sheegay. hadda meeshiina waa la qaaday, dadkii waa la qaaday, dhakhtar baa loo dhigay. sababtoo hadda marka aan tagnay ciidanka la soo kala wareegay, waana la ka soo ciyay annaga, waana la ka soo kaxeeyay, waana soo naftaydan soo buubsanay, waana ka soo baxnay. macallin dugsi baa ka mid ahaa, macallinku waliba ardadii markay fardambi ka soo laabteen oo macallinka uu ku haray baa macallinka iyo meesha ku dhacay iyo hubka ku dhacay. markuu ku dhacay macallinka madaxa qaarka hore madaxa ka gaarin, ilbaa u sii darnay waliba. waxa kale nin calooshaan baa saa u wareegsanay, oo caloosha saa u wareegsan, ninka hilibka waa iyo ahaa ninka caloosha saa u dilay. dowladda federaalka Soomaaliya wali wax faahfaahin kama soo saarin hoobiyaashan lagu garaacay xaafado ka mid ah Muqdisho. sidoo kale ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay gaareen goobaha ay ku dhaceen hoobiyaasha, kuwaas oo haatan howlgalo wada. aad bay mahadsantahay Shukri Baryare Maxamuud oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinaysa. markana haddii aynu eegno, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir gudoomiye kulan ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug, kaasoo hordhac waa baaqi madaxweynaha dadaalada markaasi lagu mideynayo shacabka Soomaaliyeed si loo laba jibaaro howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. kulankan ayaana sidoo kale waxaa lagu wadaagay warbixino ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo howlgallada haatan socda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku bogaadiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kaalinta hogaamineed ay markaas ka qaadanayaan abaabulka iyo sidoo kale isku dubiridka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. intuu kulankan uu socday, madaxda ayaa waxay ka wada hadleen muhiimadda ay markaasi ay leedahay in loo diyaar garoobo gobasha qaran ee dhowaan uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ujeedkeeduna uu yahay in la abuuro jawi midnimo oo ku jihaysan la dagaalanka Al-Shabaab, maadaama markaasi ka guulgaarista dagaalkan ay noqon doonto bilowga guul qaran oo dalka iyo dadkuba ay markaasi ay ku diirsadaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana guulaha waaweyn ee laga gaaray la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxay ku yimaadeen taageerada hagar la'aanta ah ee shacabka Soomaaliyeed ee la garab taagan yihiin geesiyaasha xoogga dalka iyo kuwa deegaanka, ayaana mudnaanta koowaad waxay siinayaan xoojinta midnimada ummadda Soomaaliyeed ee ku wajahan ka miro dhalinta hoggaanka dalka ee looga saarayo kooxda Al-Shabaab. iyadoo laga ambaqaadayo ujeedadaasi ayaana madaxweynaha qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada waxay isku raaceen in laga guul gaaro niyad samina lagu hago arrinta howlgallada iyo sidoo kale dagaalka Al-Shabaab. hogaamiyaasha siyaasadda iyo sidoo kale guud ahaanba bulshada tani waxay muhiim ugu tahay xaqiijinta hadafka qaran ee ku dhisan in cod iyo sidoo kale udub dhaxaadba markaasi u noqdaan jihaynta iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab. maamulka gobolka Galgaduud ayaa war ka soo saaray duqeymo ka dhacay degmada Galcad ee gobolkaasi. Cabdiraxmaan Axmed Maaskar ayaa soo jeedinaya warkan. wararka aan ka helayno degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in duqeymo xooggan ay ka dhaceen deegaanada hoostaga degmadaasi. diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in duqeymo xooggan ay ku beegsadeen saldhigyo markaasi Al-Shabaab ay ku leeyihiin
deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada galcad. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Galgaduud Maxamed Xasan Xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay duqeymaha halkaasi ka dhacay. waxa waaye saakay degmada galcad iyo deegaanka Masagawa inta u dhaxaysa deegaankaasoo la yiraahdo Baraak Sheekh Caamir ama teenka sida loo yaqaanaa ciidamada xaquuqda deegaanka waxay ku qaadeen weerarkaas oo sida loogu talagalay u dhacay qoladii cadowga ahayd oo sharwadayaasha ahayd oo meesha taris u helay tariskaas ay weerareen taliskii markaa qoladan qawaariijta waxaa kaga dhimatay meeshaas 6 nin 7 qorana waa laga soo qaaday gaari booyada iyo dikleera gaari cabdibilaah oo meesha u yiilda daba laga qabadsiiyey ciidanka deegaanka xaquuqda huna soo daba qowbad qabo ka soo laabtay marka waa lagu cibaadaystay saakay ciidanka deegaanka iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed khaasatan ururka 86 ee guutada 77 ayaa howlgalkaas fuliyay sida loogu talagalay inuu dhacay abaara hal saac iyo bar subaxnimo ayuu dhacay howlgalkaas meeshaas waxaa ka dhacay khasaare ugu badnaa ku gaaray gaari booyada oo meesha yiil gaarigaas cabdibilaah oo ku gubtay rag oo 7 nin gaarayo meesha uga dhintay qoryo 6 gaarayo laga soo qaatay waa ana lagu cibaadaystay howlgalku sida loogu talagalay u dhacay 100% ciidanka deegaanka iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalkaas fuliyay aba yaraatee wax soo gaar ma jiraan ayagoo dadka ay soo laabteen marka qoladan awalba waa iska naflacaari waaye ayagoo habaaba oo waxay cunaan oo hoos jira laga duldagsay marka waa lagu cibaadaystay wallahi aagaasu wadamada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe martaa ku taala isku xirta mudug Galgaduud Shabeellada Dhexe sida Galhareeri Jowle wadooyinka ku teedsan wadooyinkaasay maraan oo marin u ahoo habagooda meesha mara. codkaasina waxa uu dambeeyay warkii wariyahayaga Cabdiraxmaan Axmed Maaskara. markana haddii aynu eegno maamulka CC Khatum ayaa waxay wadaan diyaar garowga soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. faahfaahinta warkaasi Rawdo Xuseen Cali ayaa soo jeedinaysa. wasiirka wasaaradda cadaaladda diinta iyo waqaafta maamulka CC Khatum Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. waxaan u diyaar garownay imaanshaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo la filayo inuu yimaado magaalada Sacaanood ayuu yiri Xijaar isagoo intaasi ku daray maamulka CC Khatum waa maamulka ugu amniga fiican marka la eego maamul goboleedyada haatan jira shacabka waxay sugilayeen imaanshaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inkastoo waqtiga rasmiga ah oo imaanayo ra'iisul wasaaraha uusan weli si rasmi ah loo shaacin. maamulka CC Khatum waxa uu sheegay in diyaar garow xoog leh laga sameeyay dhanka nadaafadda iyo amniga. maamulka CC Khatum waa mid shacabkiisa ku abaalmariyay amni iyo kalsooni marka la eego xaaladda guud ee dalka waana kan ugu amniga wanaagsan ayuu yiri Xijaar. booqashada ayaa la filayaa inay ka dhigto mid taariikhi ah maadaama ay noqonayso markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare federaal ah oo cagta dhigo magaaladaasi tan iyo markii maamulka CC Khatum ay ka baxeen ciidanka Somaliland. dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in ay kordhinayso weerarada ka dhanka ah kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab. Cabdiqani Cabdullaahi Cusub ayaa soo jeedinaya warkaan. taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa u sheegay guddiga sanadka u qaabilsan ciidamada Mareykanka in ay Mareykanku ballaarin doonaan howlgallada ka dhanka ah Daacish ee gudaha dalka Soomaaliya. madaxweynaha iyo sidoo kale xogayaha gaashaandhigga waxay siiyeen awood ballaaran oo aan ku beegsado oo aan ku daqeeyo si xoogan oo degdeg ah ayuu yiri. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka duqeyn cirka ah oo ay fuliyeen Soomaaliya gudaheeda ku dileen saraakiil badan oo ka tirsan kooxda Daacish. waxa uu tilmaamay in sidoo kale la xoojiyay duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab taas oo uu sheegay inay sare u qaaday dhimashadooda. si adag ayaan u garaacaynaa hadda waxaan awood u leenahay inaan si adag u garaacno Shabaab iyo Daacish ayuu sidoo kale taliyaha hadalkiisa sii raaciyay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in la beegsado kooxda ISIS ee ku sugan buuraha Calimaskaad iyo Puntland iyo sidoo kale shabaabka ku sugan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalka lagu ciribtirayo kooxaha loogu yeeray argagixisada caalamiga ah isagoo xuseynaysan jiri doonin meel ay ku dhuuntaan kooxahaasi.
shabaab iyo daacish ayaa Soomaaliya waxay kaga sugan yihiin waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya ayagoona dagaal adag kula jiro dowlad goboleedyada iyo sidoo kale guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliya. waa tahay qodobadii gudaha ee warka duhurnimo Hiiraaweyn ayaa soo dhageysateen dibadda intaan u gudbin ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Cristiano Ronaldo, Messi, Ribery. door wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warka door kulamada maanta laga ciyaari doono Reaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaan soo qaadan doonaa haddii aan ku bilaabo Royalka Premier League sidoo kale kulamada laga ciyaari doono Everton iyo kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa wada ciyaari doona 8 saac bardoornimo ee kulankaasi soo gali doona halka sidoo kale kooxda kubadda cagta Brighton and Hove Albion sidoo kale kooxda lagu magacaabo Crystal Palace iyaguna ay ciyaari doonaan 11 galabnimo Ipswich Town iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Wolves iyaguna 11 galabnimo ay ciyaari doonaan halka hal saac caawa oo daawo doono Nottingham Forest iyo naadiga lagu magacaabo Aston Villa. Horyaalka Liga kulamo dhowr ayaa laga ciyaari doonaa ay ka mid noqon doonaan Girona iyo kooxda kubadda cagta Deportivo Alaves 9 saac galabnimo ay kulankaasi soo gali doonaan halka kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Valencia iyaguna ay ciyaari doonaan 11 galabnimo qadar 15 daqiiqo Mallorca iyo kooxda kubadda cagta Celtic hal saac caawa ayaa la daawo doonaa halka 4 saac oo habeenimo la daawo doono kooxaha lagu kala magacaabo Barcelona iyo kooxda kubadda cagta ee Real Betis Monza iyo sidoo kale waxaa wada ciyaaraya Como waa horyaalka Serie A sidoo kale horyaalka Serie A kulamada laga ciyaari doono waxaa ka mid ah Parma iyo kooxda kubadda cagta Inter hal saac caawa ay ciyaari doonaan halka Milan iyo kooxda kubadda cagta Fiorentina iyaguna ay ciyaari doonaan 3 saac 45 daqiiqo waageynta xubintii ciyaaraha Karaama iyo Darso Senior dibadda ku celiyo studio ay waliba qaybaha ka harsan warka. Cristiano Ronaldo, Messi, Ribery. qodobadii gudaha warka duhurnimo ayaa soo dhageysateen ciyaarihii ayuuna Cabdixaafid uu soo jeedinayay markana dibadda. hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Kim Jong Un ayaa jimcihii booqday saldhigga tababarka ee cutubyada howlgalka gaarka ah ciidamada dalkiisa. warkan ayaa sheegaya in Kim uu fuulay goobta kormeerka si uu u daawado tababarka istiraatiijiyadeed iyo tartan toogasho ay ka qayb galayeen ciidamo ka tirsan unugyada howlgalka gaarka ah. tababaradaasi ayaa qayb ka ah qorshaha joogtada ah ee kor loogu qaadayo tayada iyo diyaar garowga ciidamada dalkaasi sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay wakaaladda wararka ee dalkaasi. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabiyay hub cusub ay sameeyeen sida qoryaha goobaha fogfog wax ka toogan kara isagoona sheegay in ay sii horumarin doonaan nidaamka difaaca ee dalkaasi. booqashada hogaamiyahan ayaa imaaneysa iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay xoojinayso ololaha dhismaha awoodda militari ee dalka xilli ay sii xoogeysanayaan xiisadda ka taagan gobolka. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa warka duhurnimo ee Hiiraaweyn. Mustafa iyo Sahra ayaa wadajarida ku waramayay. Maxamed Xasan Cawse oo farsameynayay intaan warkaankiisa xigaano ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhageystayaal sida nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraaweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.